أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن إذا الكين بملك سود الدنيا الدعالة ذا كجوكتان ومركا لإيه برنامجين اللي تحناها أتكلا ساعتين ايرو تي في وحنو دلنا هاي انتهى إنه هود سكوارك عيد مبارك لما انتين با وحنو درجننا برقد يا برارة إنات هو بريستين أو تكو عويسين يفي يصقبر يبريسين ينتبه inta goor la isku salaamayaan ku salaamayna waa markale iyo barnaamijyadeena taxanaha ee aanu u balansaneen barnaamijkeena maanta waxa weeyaan barnaamijkii taxanaha ee Sooyaaliyiinti xubinta aynu kaga soo qaadan doono Sooyaaliyiinti waa xubin ugu magac darnay daafurka afka ama af xiriir afeedka Soomaalida hore barnaamijkeenan waxa isku soo dabirado hay'adda loo yaqaano Arre Edeg Institute oo inta badan ka فالوتا dhaqanka hidaha afka guunka ay umada Soomaaliyeed gaar ahaan hadana waxa ku sii gadaaman isla hay'adda kale ee weyn ee loo yaqaan Somalitology oo aanu dhawaan helnay Somalitology waxaan inta badan iyadana ku faaqinaa dalka iyo deegaanka umada geeska Afrika u dhaqan oo ay saldanadeeda ama hormuudka u tahay umada Soomaaliyeed inta aan barnaamijkayga u gelin waxaan doonayaa in aan aararteeda hormarsado dadka Soomaaliyeed oo meel kasta dunida dacaladeeda ka jooga waxa lagu dhaxfuray walaahow iyo shaki taasi oo loo soo dhaxraacay in laga been sheego ama laga marin habaabiyo dhaqankooga afka hidaha iyo sooyaalkoodaba waxa inta badan lagu tilmaamaa dadka Soomaaliyeed in ay yihiin dad guun ah oo kamid ah ama bal la yiraahdaba waxa weeyaan aadamuhu halku ku hayo salka ama unuunka aadamaha halka uu ka soo fufo dhawaan ayaanan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo aan barnaamijyadaasi aanu qaada dhigi doonaa maanta waxaynu doonaynaa inaan in yar soo qaadano dhowr qodob baayo dad badan ayaa waxay naga codsadeen barnaamijyadeena soo koobno oo aanu ka dhigno waqti kooban sidaas aynu dad badan oo nagu xiran oo faalo ama falcelin soo siiyay ay codsanayaan maanta waxaanu soo qaadan doonaa xiriirka dadkii faraaciinta la oran jiray iyo cidda ay ahaayeen dad badan oo Soomaaliyeed ayaa markay maqlaan faraaciinta way ka boodaan sababtoo ah sooyaalka ama taariikhda umada islaamku waxay jireen islaamka ka hor ay jireen umada Soomaaliyeed dadka beeshiinta ama dadka Mesopotamia ku nool maanta ama dadka Masar ku nool ama dadka ardul arab ku nool dhamaan waxay noolaayeen ka hor umada islaamka ka hor marka dad badan ayaa waxa loo soo dhaxmaray wixii islaamka ka horeeyay inaan laga hadal ayaa dad badan laga dhaadhiciyay dad badan oo Soomaaliyeed waxa laga dhaadhiciyay markaad eegto warbaahinta ama qoraalladii ay sameeyeen dadyoogii hore ee ku soo duulay dhulkeena laga soo bilaabo xilligii Boortaqiiska oo kale Greekii hore dadyoogii Roomaanka iyagoo isbiirsaday ilaa maalinka maanta mar walba waxa la isku dayaa in la marin habaabiyo oo waji kale loo yeelo geeska Afrika oo ah meesha umada Soomaaliyeed ee u hanteedu taala ama xundurteeda ku aasan tahay badda cas oo umada Soomaaliyeed inta ugu badan ay ka degan tahay waxa loo bixiyay badmareenkii Greek ah wuxuu bixiyay buuggii loo oran jiray Papilius of Eritrean Sea Eritrea maanta badda cas iyadaaba sheegataba oo magaceedii baa lagu daabay Soomaalibana inta ugu badan ka degan badda cas marka laga hadlayo dhinacna waxa loo bixiyay Eden of Aden baa loo bixiyay oo Gulf of Aden baa loo bixiyay oo cadan baa loogu magac daray dhinacna waxa weeyaan Eritrean Sea ayaa laga dhigay waana wax qalad ku ah marka laga hadlayo dhul lahaanshaha dhulka dadka Soomaaliyeedna waa inay iyagu istaagaan inay dhulkan oo la baxaan badda cas ee Soomaaliyeed waa in loo bixiyo kolka aad dhinaca kale ka joogsato Indian Ocean ayaa loo bixiyay laga soo bilaabo Cape Gardeful ama meesha loo yaqaan Socotra oo Soomaalida goor hore gacanteeda ka baxday ilaa iyo xadka beenaadka ama xadka Kenya waxa yaala baddaas dhulkaas waa dhul Soomaaliyeed Indian Ocean baa loo bixiyay anagu India kuma naal Indian Ocean manin waxaynu nahay waa Somali Ocean marka qof walba waxaan farayaa Soomaaliya inuu qariiradaasi u adeegsado Somali Ocean inuu badda u bixiyo tan casna oo magac Soomaaliyeed ku lago waayo adduunyadu qofka waxa uu asaga la yimaado baa lagu tixgeliyaa inta marka aararteeda kaga baxo waxyaabo badan oo waxa jiro aynu insha Allah halkan ku soo bandhigi doono laakiin maanta waxaan isku dayaynaa inaan dhowr qodob oo kooban oo xiriirkaasi aanu eegno dadka faraaciinta marka la maqlo af kasta oo loo rogo waxa uu ku noqdaa micno kale yeesha laakiin marka afka asalkiisa loo noqdo wuxuu ku qotomaa afka ilma Soomaali ama af Soomaaliga dhabta faraacin marka la yiraahdo waa faraain waa la jamcinaya aan markaan hal mar isdul taago guud ahaan hogaamiyaashii Masar maanta soo maray waqtiyadaas ay dadka ka talinayeen
waxaa la yidhaahdaa ama lagu tilmaamaa inay soo mareen qiyaastii 178 hogaamiye oo laqamka ama hogaamiyaha markaasna magaciisu ahaa fircoon. fircoon waa ninka laqamka ama mansabka ama maqaamka markaa hogaamiya magaca uu qaato weeyaan. marka 178 fircoon ayaa soo maray masarta maanta oo isaga dhaxlay. qiyaastii waxaa lagu qiyaasaa inay xukumayeen faraacintaasi dhulkaasi 2767 sano. waxaa lagu qiyaasaa ilaa 5000 oo sano inay isaga dambeeyeen dadka dhulkaasi xukumayay. haddaad la socotaan shaashada waxaan soo dhigay 2 sawir oo mid ka tarjumayo meesha la yiraahdo Giza ama Pyramid of Giza oo ah yani arhamta cajaa'ibka ah oo aan weli isdhalan rogin muuqaalkeeda, iyo mid kale oo dhinac taal oo dagalka Soomaaliyeed ku taal oo ku taal gobolka Sanaag ayaan sawir ahaan idin soo dhigay. tan marka arhamtaasi ku taal Masar waxaad dareemaysaa marka labadooda laba jaantuska labada sawir marka is dhinac dhigto waxaad arkaysaa tani asalka ahayd inay tahay tan ku taal gobolka Sanaag oo loo yaqaano Inafarow. Inafarowna waxa weeye waa ina Fircoon wan soo wadaa. marka faraaciintaasi waxaa jira mid ka mid ah oo xadgudbay oo ilaahnimo sheegtay oo la kawraxay markii dambe oo ka hadli doono oo dee xadgudbay oo midkii inta badan diintu ay ka sheekayso oo nin aad u xun oo gaalnimo cadaystay ahaa. laakiin dadka intooda kale faraaciinta kale qaar waxaa jiro xiriiro joogto ah oo ba'an la lahaa dhulkii asal ka yimaadeen ee ah dhulka uduga ama dhulkii eebayaasha ee maanta loo yaqaano Puntland ama gobolada bari ee Soomaaliya. waxaa weeyaan 178 fircoon ee dadka dhulka xukumayay. waxaa xoog loo buunbuuniyaa ama xoog loo soo qaataa 10 ka mid ah oo saameyn ku yeeshay nolosha aadamaha markaa noolaa iyo tiknoolajiyadii berigaa jirtay ayay saameyn ku yeesheen. waxayna caalamka kusoo biiriyeen waxyaabo badan oo ah sida carro-rogga, sida beeraha loo sameeyo, sida daamamka ama biyo xidhanada loo xiro, daaraha cajaa'ibka ah sida loo dhiso, arhamtaad aragteen oo sidaa u samaysan oo ilaa maalinka maanta tiknoolajiyada casriga ah dadka ama injineerada casriga ah waxay fahmi kari laayihiin dhagaxdaasi dhagax dixeedka ah ee awoodda leh ee xilligaa sida halkaasi yani intaas oo dhudhun dhowr boqol oo dhudhun sida loo gaarsiiyey dhirarkaasi. dadkaasi oon mashiine haysan, xilligii birta lama joogin, xilligii waxaa lagu jira Stone Age-ka xilligii loola jiray, xilligii dhagaxda la isticmaalayay. waxaa ka dambeeyey Iron Age-ka xilligii birta la helay, waxaa jiray Bronze Age-ka xilligii loola jiray, waxaa ka dambeeyey xilligii warshadaha. dadka way ka horreeyeen waana lala yaabaa ilaa iminka waxa dadka ay qaabkii waxay adeegsanayaan ama graffiti-ga waxa la yiraahdo ama halbeega ay wax ku cabirayeen ilaa hadda waa la garan laayay. 10 nooc 10kooga markaa waxaa ka mid ah kow nin fircoonkii loo oran jiray Joseph waxa weeyaan waa goosad oo kale, waa goosad. marka af Soomaaliga hore aan ku micnaynayno wuxuu noqonayaa goosad oo ah qof kaligiin socod ah oo talada asaga kalidii ay ka go'do oon cidna waxba talada ka siinin oo waxa markuu dhameeyo oo la yimaado golihiisa. waxa la yiraahdaa waa cawl goosad ah ama waa xoolo goosad ah maanta isticmaalnaa. xoolo gooni u baxay oo markuu dugaaga ku dhaxdhaco gooni u yaaca oo goosad noqda. 2 qofu waa caan ilaa iminka maalinka maanta ereyga qofu af Soomaaliga waanu isticmaalnaa oo waxaan nirahnaa qofkan wuu qoofay ama waxaan waa laga qoofay. waxa weeyaan waa wax la diiday ama laga laalay ama laga hor yimid oo kale. qofu isaguna marka mid waliba taariikhdiisa ayaanu ka sheekeyn doonaa laakiin maanta waan dulka xaadin ayaanu ku sameynaynaa. 3 xaashi basuud oo ahayd gabar libaaxad ah oo ahayd libaaxadii dhadig. marka af Soomaaliga hore loo micnayo waxay noqonaysaa libaaxadda dhadig. marka xaashi basuud oo taariikh weyn ku leh safarkeedii caalamiga ahaa ee 3500 ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam ay ku timid Soomaaliya, iyadoo oo u timid Soomaaliya inay ka barakaysato, hadiyadna keento, dabadeedna ay la kulanto boqoradii markaa Soomaaliya ka talin jiray oo markaana uu joogay boqorkii loo oran jiray boqor Baaraxow ama dadka qaar yiraahdaan boqor Barre. laakiin inta badan markaa aan raadraac sameeyna wuxuu u badan yahay Baaraxow. waxa weeyaan waa midabka dhalinyarta, waa midabka ragga Soomaaliyeed inta badan midabka furan ayaa la yiraahdaa. ninkan uu midabkiisu uu baraxan yahay
magac ahaanna waa lala baxaa baraxow boqor baraxow iyo boqoradiisii ee la oran jiray cutiya oo ay gaalada u yaqaanaan boqor baraxow iyo queen ati laakiin waa cutiya caada gaaladu ma karaan ama dadka intooda badan caalamku caa ma karaan marka ati bay ugu soo dhawaaqeen dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay ahayd boqorad xadiya marka xaashi basuud imaatinkeeda ayaan dul taaganahay yacni marka maanta la eego waayo dadka faraaciintu qof waliba wuxuu leeyahay maqaam gooni ah iyo meel lagu aaso iyo xabaalo maguuraan ayuu lahaa marka dacrul baxar meesha loo yaqaano oo inta badan laga helay xiriirkii ay xaashi basuud la lahayd dadka Soomaaliyeed marka la akhriyay afarta faraaciinta waxaa ku qoran marka ay ka soo degtay deegaanka marka boqor baraxow uu ka talinayay in markii la soo dhaweeyay lagu yiri weedha ah maxaad inaga soo doonteen ama aad inaga soo doontay awowyaashaaba waa kuwii ina gooyay marka taasi waxay ku tusinaysaa xiriirka ay faraaciintu la lahaayeen dhulkii ay asal ka tageen sida ay oga tageen iyo dhibaatada ku dhacday dib baan uga faalloon doonaa waxaa ku sii xigo fircoon gabadhaasi waxaa ku sii xigo Tutmosi ninka la yiraahdo Tutmosi kow Tutmosi laba Tutmosi saddex baa jiray Tutmosi marka aad af Soomaaliga hore aad ku barto wuxuu noqonayaa qof u samaysan inuu wax walba isku gudbo oo uu mooso waxaanu nana dad intuu soo gelin ayaa la iska moosaa Tutmosi marka wuxuu u samaysnaa habanduule wuxuu ahaa nin haliyey ah oo dagaalka ku baas dabadeedna meesha uu isku gudbo in cidna ka soo bixin ayuu ahaa isagana marka la mujaarada ka sheekeynaa waxa ku sii xigo fircoonka liira way 10ka fircoon ee ugu saameynta badnaa baan ka hadlaynaa waxa ku sii xigo Amantoheb nikiliyaado Amantoheb markaad eegto waa nin dadkiisa ay amaaneen oo amaanan oo u amaanan inuu ahaado qof dadkiisa hogaamiya Amantoheb markaanu hieroglyphiyada waxa la yiraahdo ama afkii faraaciinta hore ama sumadda marka laga hadlayo ereygaasi sidoo u qoran yahay macna ahaan iyo af Soomaaliga horena wuxuu ku noqonayaa nin tolkii ama dadkiisa u amaanan waxa ku xiro akhanten macna badan ayuu yeeshay akhanten marka la fasirayo iyaduna af Soomaaliga hore kale waxaad ku arkaysaa inay tahay qof loo sameeyay inuu noqdo astaan waxaa jiro wax la yiraahdo oganten iyaduna waa taariikh kale oo ka hadlayno oganten waxay ahayd halhayskii ama baaqi saldanadii Adal Empire ama ciidamadii Imaam Axmed Gurey hogaaminayay markii ay jabeen waxay sameysteen wax loo yaqaano afgarashadaas waxay ahayd marka cadowga iska hor yimaada ilaa dadku way isku ekaayeen cadow badan oo dad Soomaaliyeed waxaa jiray galay masiixiyoobay dad kale waxaa jiray xabashida qaar badan oo nooc baa jiray dadku warmaha isku siba u siteen gundhatada ama qaydka isku siba loo watay marka waxaa la sameystay wax la yiraahdo wax la isku fahmo dabadeedna waxaa lagu oran jiray marka ninka laga hor yimaado ama koox laga hor yimaado waxay ku oran jireen abanduuliyaashii ama geesiyaashii Adal Empire ee Imaam Axmed Gurey ragiisi ahaa oganten ayaa lagu oran jiray ninka hadduu maamaleeyo oo geesaha eego waranka waa laga tafinayay akhanten marka ereygaasi iyo akhanten waa isku micno waa afgarasho marka inta ka gudubno Tutankhamun ayaa ku xiga Tutankhamun isaguna aad baa looga sheekeeyaa inkastoo taariikhaha qaar ay been ka sheegeen oo yiraahdaan wuxuu ahaa qof lab iyo dhadig isku jira ayay yiraahdaan inta badan laakiin anigu meel kuma arag markaan wax baarayay Tutankhamun marka isaguna waad arkaysaa waxa weeyaan bahda reer Amun-Ra ayuu ka tirsan yahay marka mid walba waqtigu ahaa sanadkii intuu xukumayay ayaa halka ku qoran laakiin maanta waanu dul mareynaa waxa ku soo haray Ramsigii labaad waa ninka ilaahnimada sheegtay ee xad gudbay kibray ee quraanka in badan ku soo arooreyn ama quraanka in badan ka hadlay ee sameystay dhulka yani ajaayibka ah ee wasiirada waaweyn ee ajaayibka sida Hamaan oo kala lahaa Ramsi gaaladu ama dadkan reer galbeedka sida hore u sheegnay qof waliba markuu doonayo inuu wax turjumo
wuxuu waxa u turjuntaa sida ay dadkiisu wax u fahmayaan ama lahjadii ama erey bixintiisu sida ay tahay marka ereyo badan oo Soomaaliyeed ayaa la dhalan rogay oo erey bixintoodii ama qoraalkii ama dhawaqoogii la dhalan rogay marka Ramsey marka horta waa ninka oo taariikhdiisu aad wada garanaysaan laakiin maanta sabab baan u soo qaadanaya isaga Ramsey markaad eegto ama Ramses bay iyaga ugu dhawaaqayaan ninka noocaas uu ahaa marka laga samaynayo faalo marka laga samaynayo waxaa inta badan loo isticmaalaa Ramses the Great ama yani fircoonkii aadka u xooga badnaa ayay gaaladu inta badan ku tilmaamaan wuxuuna ahaa kii 19aad ee markaa yani saldanada markaa taxan qaab u yaal saldaneed baa jira waxa qaab u yaal saldaneedka loo yaqaan ama dynasty-ga waxa la yiraahdo oo ah kolba dad isleh ayaa xukuma marka dynasty koowaad kan labaad kan saddexaad afraad baa jira isaga marka kan 19aad ayuu markaa ahaa oo yani qolada qaybtaasi ah waxa kale oo uu isagu lahaa inuu sameeyay waxyaabo badan oo ayna kuwii ka horeeyay sameeyeen sababta marka isaga u soo qaatay waxa weeyaan waa mid aad muhiim ah inaan halkan ka ogaano carruurtu dhalay iyo ooridiisii iyo intuu talinayay iyo deegaanadu degay dib ayaan ugu dhiganayaa mar kale aan ka hadli doonaa laakiin inaga maxaa naga quseeyo eres af Soomaaliga Ramsey muxuu ku noqonayaa af Soomaaliga horeysaan u sheegnay Somalitology waxaanu aad u inta badan uga hadalnaa erey bixinta afka Soomaaliga marka aad doonayso inaad baarto haddii uu ereyga kugu adkaado jumlada af Soomaaliga wuxuu ka kooban yahay laba weerood mar walba haddii jumlada kugu adkaato marka hore isku day inaad xagga dambe ka soo akhriso haddaad xagga dambe ka soo akhriso waxaa kuu soo baxayo ereygii aad raadinaysay ee dhabta ahaa inta badan Ramsey markaa oo fircoonkaasi dee xadgudbay ah ama labaad marka laga hadlayo Soomaaliga waxay ku noqonaysaa marka aad xagga dambe ka soo akhriso ismar ayay noqonaysaa ismar waa maxay ismar yaa loo adeegsadaa ismar af Soomaaliga waxaa loo adeegsadaa qofka maroorka ah qofka qaloocan ee go'aanka keligii qaata ee carada degdega ah leh ayaa leeyahay ismar war qofkani waa ismare ayaa leeyahay ismare ama waxa leeyahay wuu ismaray baa leeyahay marka magaciisu iyo sidoo dhaqankiisa iyo madax adeegiisi wuu isleeyahay ismare marka maxaa ilaa maalinka maanta ah qaabka uu u samaysnaa iyo waatan dee meelo badan quraanka lagaga hadlay yani loo ballan qaaday meydkiisu inuu ahaan doono mid sii nagaada marka meyd nagaashadaasi meyd kaydintaasi sida loo isticmaali jiray iyo waxa loo adeegsan jiray ayaa iyadana ka hadlaynaa taasaan marka ninkan ismare ama fircoon ama Ramsey taasaan doonaynaa inaan ummadda usoo bandhigno in dadka Soomaalida ahaayeen dad hal abuurkoogu u aad u sarreeyay laakiin la marin habaabiyey intaa kadib waxaa jirta weer oranaysa war hebelow istaag oo hawshaa qabo adigaa firfircoone adigaa fircoone waa maxay weedhaasi adigaa firfircoon waxa weeye adigaa kartidii xooggii aragtidii maskaxdii fircoon oo kala leh istaagoo hawshaa qabo adigaa fircoone orodoo hawshaa qabo ama idinkaa fircoon ama waxaanu u fircoonnahay inaan hawshaa qabanno marka ereygaasi wuxuu toos kuu tusinayaa inuu erey Soomaaliga sida ugu qotomo halkaasi yani af Carabi baa lagu sheegay Greek baa lagu sheegay Roman baa lagu sheegay Persian loo afaf badan intiba micno kale sameeyeen laakiin ereygan iyo weedha adeegsigeeda waa mid isle taasi markaan ka sii gudbo fircoon waa laba weedhood waa fir iyo coon waa firkii dadkay gaagaabnaa marka coon muxuu noqonayaa waa nooc coon haddaad xagga dambe ka soo akhriso wuxuu noqonayaa nooc buu noqonayaa haddii aad fir xagga dambe ka soo akhriso muxuu noqonayaa waa rif marka waa coon rif waa coonkii ninkii gaabnaa ee rifmay fir oo rif ah waxa rif waa maxay waa waxa la rifay ee yaraaday ee asliyan sidii u ahaa ka yaraaday haddana wuxuu noqonayaa coon muxuu noqonayaa nooc
marka waa nooc rifmay nooc rif waa hal eray nooc rif fircoon labada dhinac marka ka soo akhrisaba labadii weedhood waxay ku soo fariisanayaan afkan guunka ah ee ummadda Soomaaliyeed leedahay ee la dafirsan yahay in la daafuro okay maxay adeegsan jireen kolka uu boqorku dhinto oo la doonayo in boqorka markuu dhinto waxa lala aasi jiray agabkiisa dahabka uu haysto warmihiisa hootadiisa qolxadkiisa waxa lala aasi jiray boqorkiisa iyo dhaclaha waa bahalka sida la yiraahdo oo ilaa imika maanta faraacinta haystaan oo Soomaalidu isticmaashay la hadda boqorkuna wuxuu ahaa aalad dhaxda lagu xidho aalada dhaxda lagu xiranayo oo magaceedu uu boqor yahay haybada dhaxirashada kaliya waxa loo ogolaa qofka boqorka ah marka magacii wuu isbedelay markii uu waqti badan oo kumanaan sano ka soo wareegay magacii boqor micnihiisi iyo haybadiisi weli way jirtaa laakiin wuxuu isu bedelay qofkii Soomaaliga ahayd marka boqor ahaa ama boqortooya u talinayay maanta ma isticmaalo xarigii boqorka ah ee dhexda ugu xidhnaa marka laakiin asliyan dadka boqorkaasi isticmaalo waxay ahaayeen dadka ummadda hogaamiya marka waxa lala aasi jiray agabka boqorka dhaclaha iyo dahabka uu lahaa xabaal marka maguuraan oo hoos loo aaso ayaa jirtay maxaa marka inta aan la aasin ninka dhintay ama gabadha dhimatay ee boqorada ama boqorka waxa lagu sameyn jiray wax la yiraahdo kawrixin waxa weeyaan waa wax go'ay oo socday rixinna markaad eegto wuxuu noqonayaa wax la jeclaa oo go'ay ayuu noqonayaa kawrixin marka waa maxay kawrixin waxa weeye engejinta meydka iyo kaydinta meydka ayaa la engejinayaa jirkiisa si uu u dhala rogmin dabadeedna waa la kaydinayaa maxaa markaa lagu kaydinayaa oo u sababayo inuusan murmuraaqin dhiigga waxaan ka wadaa oogada iyo hilbaha inaysan xoog isu bedelin oo san murmuraaqin iminka haddaad eegto ramsi ama ismare qalfoofta meydkiisa muuqaalka qofka weli wuu joogaa waa meyd laakiin muuqaalka qofka wuu joogaa ilaahay subxaanahu watacaala baana ugu talagalay in lagu cibri qaato laakiin dadkani waxaan ka hadlaynaa waxa ay isticmaali jireen aaladaha ama dawada ayaanu ka hadlaynaa kawrixintaasi ayaa markaa waxaa jira maanta waxa la isticmaalaa magaca la yiraahdo qawrax oo dadka Soomaalida la baxaan qawrax marka qawrax markaanu baarnay asliyan wuxuu salka ku hayaa kawrax oo ah kawrixiye wax engejiye marka dhakhtarka qaabilsan ama fayadhowrka qaabilsan adeegsiga maadadani in meydka lagu kawrixiyo ama qawrixiyo ayaa dhakhtarka magaciisa wuxuu ahaa qawrax ilaa maalinka maantana waa lala baxaa qawrax oo waa magac Soomaali galbeedka waqooyiga waa lagala baxaa maadada marka la isticmaalo maxay ahayd maadada la isticmaalo waxay ahayd kuwan soo socdo meyd engejinta ama meyd kaydinta faraacintu waxay adeegsan jireen maado wax lagu kawrixiyo si uusan meydku isu dhalan rogin waxaanu ugu caansanaa ramsigii labaad ama ismare ama fircoon waxaa laga keeni jiray maadooyinka dhulkii eebayaasha ama dhulkii uduga ama the land of the origin ama dhulkii asalka geedaha markaa la isku daro ee jirka la marinayo waxay kaliyihiin kuwan soo socdo malmalka geedka la yiraahdo malmal Soomaalidu waa wada taqaanaan meydiga ama dadka qaar u yaqaanaan faleenka beeyada cadaada hadiga xabagta oo dhowr nooc u samaysan oo 100 nooc leh ayaa la isku dari jiray geedahaasi waxay markaa sameynayaan in oogada jirka ay u malmalka haddaad eegtaan baalka la malmalka boogta meesha boogta ee markaa xaabuqday haddii malmal la mariyo way engejisaa way kojinaysaa dabadeedna way engejinaysaa malmalku markaa inuu jirka toobo ayaa loogu talagalay oo uu jirka engejiyo oo soo toobo oo dheecaanka gudaha ku jira uu toobo beeyada oo kale waxay ka ilaalinaysaa waxyaabaha urta
waayo maydku marka uu ama wax walba oo dhinta markiiba ur ayuu bixiyaa, urtaa xasharaadkaa soo raaca iyo dee dugaaga urtaasi ayuu ka hortegayaa. bahasha la yidhaahdo maydiga oo kale waa sida marka mid waliba sababta uu markaa jirka sida oola falgalayo iyadana dib baan ka sheeganaya, laakiin hadda waxaan doonaynaa micnaha yani ay dawadaasi u lahayd bulshadeennii hore ayaanu doonaynaa. marka adeegsiga waxa weeyaan waa malmalka, waa maydiga ama faleenka, beeyada, cadaada, hadiga geedka la yidhaahdo, iyo xabkaha oo badan oo xabaga 100 nooc oo xabagaa jiro, oo xabag cadaan ah, mid cas baa jirto, mid hurdi ahaa jirta, qaar nooc walba lahaa jira. kuwaasoo dhanna waxay jirka ka dhigayaan inay u sameeyaan sida bahalka leedaha qasilka ee timaha la marsado ee gobka laga sameeyo. jirka waxay ka dhigayaan wax khafiif ah oo aanan oo sibiil ah oo sibiq ah. dabadeedna markaas haddana beeyadii la marinaya, kolkaas haddana maydigii la marinaya, kolkaas haddana cadaadii la marinaya, markaas waxa lagu duubayaa faasada lagu duubana dhirta ayaa laga soo jixaasi jiray, iyadana waan ka hadli doonaa. beeyada marka waa 2 nooc, midna waxa la yiraahdaa moxor, midna waxa la yiraahdaa lufood. labaduba waa wax aad muhiim ugu ahaa dadkeenii hore qaabkay u isticmaali jireen. waan kasii soconayaa barnaamijkan aan qaybihi kale ugu galno. isku soo wada duubo qaybtan hore ee kowraxinta maydka ee uu dhakhtar qawrax angajinayo maydkani ama uu kaydinayo. waxaa jiro beeyadani iyo waxaan dhan waxay usii kala baxaan 7 nooc oo mid walba iyadana awoodeeda ay leedahay. waxayna kala yihiin 1 mushahaad iyo mujawal iyo faksbiir iyo fasqiir, shooto, jibaanjib iyo fooxana waad garan kartaan. marka fooxaasi isaguna awoodda uu leeyahay sida loo shito, sida yani caajiska guryaha uga qaado, qabuuraha sida loogu shido, meelaha maxalida maqaamiyada sida loogu shido, masaajida, kaniisadaha, waxaas baasna loo adeegsan jiray. ka ganacsiga waqti dheer ayaa marka waxaasi ay faraacintu ka ganacsan jireen intay Soomaaliya u yimaadaan. Soomaaliya marka waxay wax u iibgeyn jirtay dhulkii marka loo yaqaan Mesopotamia ee Ciraaqda maanta, iyo Beeshiya oo Iiraan ah, iyo India oo sii rogan, iyo China ayaa u iibgeyn jirtay. Soomaaliya marka waxay ahayd meel adduunka kulmisa, ganacsiga adduunka ugu muhiimsan meesha kulmisa. mar waxa la oran jiray Soomaaliya dhulkii xariirta ama the road of the silk ama wadadii xariirta ayaa la oran jiray. wadadii xariirta waxaa ku soo duulay marka aynu ka hadlayna wadankii Boortaqiiska oo marka awoodda badnaa. dawooyinkii fircoon ismare kowrixintii engejintii loo isticmaalayay, ninkii la oran jiray dhakhtarkii wax kowrixinaya oo qowrax ahaa. inta markaan kaga baxno waxyaabo badan oo kale oo cajaa'ib ah ayaa jiro oo iyaduna aynu ka hadli doono hadduu Ilaah yiraahdo. qaybahan marka dambe waxaynu ku soo qaadan doonaa iyaguna oo soo socda hadduu Ilaah yiraahdo, oo Ilaahay nagu gaarsiiyo waxyaabo badan oo cajaa'ib ah iyaguna oo halkaan ka soo dhax saarnay. marka Somalitology iyo carre edeg waxay mar walba bulshada Soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay u istaagaan in ay sheegtaan, ku hadlaan, isku dhiiradaan awoodda Ilaahay uu siiyey min af iyo min dhaqan iyo mid diimeed iyo mid dagalba ay leeyihiin, oo ay ka baxaan walaahowga ninka shisheeyaha. bal u fiirso I'm Lewis iyo Richard Burton iyo ayaa inta wax qoren bay leeyihiin Soomaalida waa sidaa. war nin cadow kugu ah oo kugu soo duulay oo ku gumeeyey oo dhulkaaga qabsaday buug uu kuu qoray sideed ugu qancay? buuggan I'm Lewis baa qoro waa buug caynkaan ahoo waa buug sidaan ahoo Ingiriis baa war Ingiriis waa kiina gumeeyey ee sidaan maanta naga dhigay. sida maanta annaas ninka naga dhigay waa Ingiriis. buug nin gumaysiga uu kuu qoray ha ku qancin. Richard Burton oo ah beenaale weyn oo buugaag badan qoray oo islaamka ku soo duulay oo boqortooyadii islaamka ee Najiliyaasu burburiyey oo teeni burburiyey. buugaagtu uu qoray bay dad haabka ku haystaan ilaa buugani Richard Burton baa qoro Soomaalida waxaas ka sheegay. Soomaalida cid run ka sheegaysa ma jirto ilaa annaga aan u istaagno mooyaane oo aan wax iyaga afkaynu doono aynu ku qoranno, luuqadaynu doono aynu ku hadalnaa. maanta adduunka 190 luuqadood lagu hadlo ayay maanta Soomaalida ku hadashaa. ku qor afka aad garanayso. haddaad af Soomaali wax ku qori karayso wax ku qor. waxba isbad dhaamaan af Soomaali, af Carabi, af English, Dutch, Spanish, Norwegian,
waxba isma dooriyaan luuqad waa luuqad af waa af afka aad doonto ku qor intaa markaa haddaan kusoo gunaanado qaybteedeen markaa ayn maanta kaga hadlaynay xiriir afeedkii bulshadii hore ka dhaxaysay qaybta dambe ee barnaamijkan oo isaguna barnaamij aad u xiisale waxaan kusoo qaadan doonaa ambiyada ama rasushii ilaahay uu soo diray ee uu u soo diray inay dadkiisa gaarsiiyaan risaalada oo magac Soomaali leh ayaanu kusoo bandhigi doonaa qaybta dambe nin odayaa wuxuu hadda kor iga warramay dalka Sacuudiga in laga sii daayo idaacad TV-ga Sacuudiga inuu jiray nabi ku hadli jiray afka Soomaaliga programkii markuu baxay isla markiiba waxa laga saaray waa la laalay dabadeedna galkii baa laga saaray dabadeedna wariyaashii iyo wixii dhan baa samada lagu dubtay marka waxaad ogaataan caalamka iyo Soomaali ayuu loola ka dhaxeeyaa dadka u haysto qoomiyad Hiblaaye iyo Kenya iyo Ethiopia iyo dagaal laga dhaxeeya maahan caalamka iyo Soomaali ayaa loolamaya inaga iyo caalamka weeyaan wadan kasta oo dunida ku nool oo gaal iyo islaam ah arab iyo ajam ah dagaal buu nagula jiraa mid dhanka dhaqanku dagaal nagala jiraa mid dhinaca siyaasadda mid dhinaca dhaqaalaha mid waa dhuldoon mid waa xariir doon mid waa dagal doon mid waa macdan doon mid waa saliid doon mid waa dad doon caalamka oo dhan Soomaali dagaal buu kula jiraa marka inaga isma hayno kuwan jaarka ah ee inagu aynu marka hore aynu hawbaanta u daadin jirnay ma aha kuwan ishayno waxaanu isayna waa caalamkaasi gibilkiisu ama cad yahay ama hurdiga yahay ama casaanka yahay noocu doonaba ha ahaadee marka barnaamijkeennii Sooyaaliyeysinji qaybteennii aan kusoo qaadanay xiriir afeedkii ummadii hore ee Soomaaliyeed adeegsiga dawooyinka sida meydadka loogu kowraxiyo ama loo engejiyo dhakhtar fayo dhowrkii weynaa ee la oran jiray qowrax iyo adeegsiga dawooyinkaasi sida meydiga iyo beeyada iyo hadiga iyo cadaada iyaduna inta ayaanu kusoo gunaani doonaa qaybta xigta waxaan idin rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa in aad la bakayl inaad subscribe tiraado si aad u hesho waxyaabo badan oo ka daahsoon ha ilaawin inaad mar walba u istaagto qofka aad tahay qofka walaalka ee hawshaada wadana aad ku taageerto inuu hawshani ka mira dhaliyo idamalle khayr baan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.